السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودا وادا أخيار كلباديودي بريدة صومة طنطور. أحمد يا ستة عشان نيم غنا مسافر عشاهد. أنت أبو متشفى الحمد لله رب العالمين وأنا ما تعرف مطبخ وأنا لدنا هاي قفك يقفل حي عافمات كي أنا ما طلب ما تنتبه علي هاي كي كنا حاولنا وحلي هاي يا وقت قبل ما تنتهي ملبا دعاء صور لي وهاكي وتبقول كيف السجال تكوي دعية الحمد لله رب العالمين ما شاء الله أدوم ستي هل قف يا هباري بمرية هل كقف محلية هذا قال لك تجابه هبارك وتكون هتنت إلى هي كأبر مرية والإنسان كحسنات كأخرها كوصار يا ملو حبودي أنا هبارك كحنا قول هذا الله هو هبار أنا حد قلت شيء midda ku sheegayaa maalintii uurka hooyada aan galeen garanaysa adduunka intaan jeeraan cunto cuni doono inta jeeraan suuliga gali doono inta jeeraan saxaroon doono inta jeeraan neefsan doono intaba waa la qoray waxna la igu dari maayo waxna laga dhimi maayo haddaad ii habaartii haddii kalaba ma iga marka habaarkaaga ha isku yarayn adigu intaas way iga kaftaan soo dhawaada arrin aan aad uga yar naxay oo aad uga damqalay baan idin wadaa gabadhii Sumayo Qurux ee maalintii dhawada Hargeysa lagu soo dhaweeyay waa gabadhan taysan dhade ani waa ku soo dhaweeyay Sumayo waxaan kulana waa ku soo dhawo magaalada waa magaaladaadii ay smartiyeen dad ka waran soo dhaweynta quruxda alla soo dhaweynta quruxda baan laga ma sheekeen kal waxa ka baqaya inaan baxadan soo laabto sidii li soo dhaweeyo ma bixiysid laakiin waa degay maxaa kartaade Sumayo soo dhawo aad ugu faraxsanahay gabadhaas waa gabadhii la socotay Mrs Wall waa dib loo celiyay Sumayo Quruxna iyada si wanaagsan baa loo soo dhaweeyay مع الفنانين رير هرقيسة قار كميدا ووليبا قبل أقول عد كمعالي أيا Sumayo Qurux مالنتي سود ويسي ولاب تسيدا أقليس حاقرية حشم ميدين دقا لكن هذا اللهو توحا هو سيدي كيدين دقاتي ميدين دقا ياسك فنانين دا وليبا عد كده وكالا هيس كده وكوا يستاوى يا حتى بس Sumayo Qurux soo dhaweyntii la soo dhaweeyay waa laga soo matijiyay muddo 3 habeen ah waxay ku jirtaa xabsiga magaalada Hargeysa waana xiran tahay waxaana la qabtay habeen saddexaad iyadoo dhalinyaro reer Hargeysa la caweynaysa waa lagu tuuray wallahi waa gadab ma garat aad baan uga xumahay Sumayo in la xiro oo gabar yara siyaasi ahayn waxba aan wadin gabar asturan ahayn markii meesha soo gashay waa asturnayd haddaba xarigan la xiray Sumayo Qurux markii aan eegay wuxuu ii cadeeyay arrimo lagu eedeynaya Mrs Wall oo laha wal dib baa loogu celiyay inaan waxba ka jirin bay cadaatay arrimahaas maxay yihiin midda koobana ku sheegaya waxay tahay Sumayo Qurux markii Hargeysa ka soo degaysay way asturnayd mariya caadi xilay sida halka muuqanaysa maxaa la lahaa Mrs Wall mariya qaaqaawan bay xidhnaa soo lama lahayn ya waa been weeyaan sidoo kalena Sumayo Qurux waxay Somaliland ama Hargeysa ku soo gashay passport ama hawlihii fiisa ay ku soo gashay Somaliland waana lagu soo dhaweeyay maxaa la lahaa Mrs Wall passport la amay soconaysay fiisa kuma soo galay sharci darro ku soo gashay maahay taasina been noqotay oo xaqiiq ayay noqotay arrimaha soo dhaw waxa baabiyay xariga Sumayo Qurux waayo markii loo tagay taliyaha ciidanka booliska Somaliland ee la su'aalay la yiri Sumayo Qurux maxaa lagu haystaa wuxuu ku jawaabay waxa lagu haystaa inay la socotay Mrs Wall
waxaa noo caddaatay inay mas-uul la socotay in waananu qabanay marka 3 habeen bay ka xidhan tahay maxkamad lama soo taagay sidaan maqlay dib baa loo tuuraya iyada muqdisho ayaa lagu tuuraya may garatay waxaan halkan ugu mahad celinayaa hal abuur cawil bile oo arrintaa isu xil saaray oo macal taliyaha u tegay afkiisa ka soo qaaday oo uu ramay wax walba uu soo sheegay waxaan idin sheegayaa hal abuur shaqaad wanaagsan buu qabtay oo cidina aanay duran ma jiro qof aan waxba isu ahayn meel ku xiran taliya intuu tago weydiinaya sababta loo xiray afkiisu ugu tegay wuuna soo weydiiyey wuuna u sheegay waxaan u sheegayaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ninka hal abuur la yiraahdo ha hagranina YouTube-kiisa booqda like-ta ya may garateen aniga iyo niman badan halkan ogahay qabyaalada waanu dhadhaminaa magaranaysa laakiin sanadka hal abuur la yiraahdo qabyaalada ma dhadhamiyo ixtiraasha saxaab ku soo jeeda maanta uma hiiliyo ma soo hadal qaado may garatay dadka dhex ugu shaqeeyaa aniga laftiigu dhex ugu shaqeeyaa laakiinsi ya marka la qanjiriyo maanta ayaan soo buugaa oo dalka seefta kala baxaa anu hadalka cad baan qana kama sanaysto magaranaysa waxaan naga reebaya Soomaali qabyaalada ay cunaysaa haddana gacanta la gelin qabyaalada layga laasan maayo baasha maran mayso ya oo qabyaaladu qaali garow mayso sixirka iyo biyadu waa tasxiir fara ka dhacay ya intaas oo iga kaftan iyo waliba xaqiiqo ku salaysantay Soomaalidu qabyaalada sameeyay naga sameeyay may garat mid baa ku sheegaya aad baan ugu xumahay xariga sameeyo qurux falka foosh xulana waa cabaareynaya Somaliland waxa leeyahay gabar yaro TikTok taro aynu xidhno wax micno oo inoo sameeyay ma jirto aan ahayn ceeb iyo sumcad xumo ahayn wala duuka inaga dhax saarna weydisii oo ya maxaa tahay gabadha lagu xilaysan smaashka habli hore wala sii deeyay imika waxa soo dhawaysay baashi gabadha sharaf badan miga شو عبد الله وكم تدك سود وين اسمه عبد سمية سود وين أنا واحد لي مقال خليك صار مقال خليك صار ليت وين قيل له الحمد لله رب العالمين عافمات رئيس ودعية وانا مهستهم تتأرض قيمة بدن والشرف بدن وإن حيستاهل هاي يقدر يجي حفظت حنا إن أقول حسيته وإذا كتبت أنا أقول فيها كما واحد هذا هواك واحد لي هواك شو عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يا المدار حرتي طويتي صمني دباي